ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa tagay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. wuxuu helay fursad uu ku booqdo mid ka mid ah deegaanada uu sida gaarka u matalo beel ahaan. wuxuu safarkiisan ku soo aadayaa isagoo colaad siyaasadeed u qaba maamulada Puntland iyo Jubbaland. waxaase la eegayaa waxa uu la tagi doono magaalada Laascaanood. maamulka deegaankaasi ka jira dhaqaale ahaan waxa haysta culays. waxa liita mashaariicda xukuumadda dhexe ee Soomaaliya ay siisay maamulka Khaatumo. wuxuuna maamulkan uu wajahayaa diidmo ka imaanayso maamulada daafaca ee ka xiga Puntland iyo Somaliland. dhammaan arrimahan dhaqaalaha iyo mashaariicda kaalmada amniga waxaa maanta ugu muhiimsan reer Khaatumo in Xamse meel uu ku sheego aqoonsiga maamulkan. Khaatumo hadda maan maamul goboleed, dowladda dhexe waxa ay siisay jiritaanku meel gaar ah oo xitaa aan gaarsiisnayn maqaamka maamul goboleedka Banaadir ee lagu tago shirarka siyaasadda. qaybo ka mid ah bulshada gobolka Sanaag iyaguna waxay ku dhawaaqeen maamul la yiraahdo Maaqir waana colaad kale. waxaana jiro shuruudo u baahan noqoshada maamul dhameystiran oo aan weli buuxin reer Khaatumo, sida inaan maamulku u dhameen beelaha degan gobolada Sool iyo Sanaag. haddana dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya waxaa lagu eedeyn karaa inaan waqti gelin isu raadinta beelaha degan si meesha loogu dhiso maamul loo dhan yahay. ra'iisul wasaaruhu ma lahan awood dastuuri ah oo maanta uu ku aqoonsan karo maamul goboleed. waa shaqo u baahan xukuumadda iyo baarlamaanka. laakiin ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegi karaa ballanqaad haddii arrintaasi ay ka go'an tahay dowladdiisa. xubno ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay noo xaqiijiyeen inuu safarkaani ku yimid cadaadis xagga baraha bulshada ah balse markii hore ku jirin qorshaha ra'iisul wasaaraha. laakiin Xamse waxa uu aqbalay safarka markuu aqriyay falcelinta baraha bulshada iyo siyaasiyiinta reer Khaatumo. inay Khaatumo noqoto maamul rasmi ah waxa ay dariiq u furi kartaa Banaadir oo iyaduna dadkeeda ay rabaan inay maamul goboleed noqoto. waxay kaloo kicin kartaa arrintan oo ay damaca maamul gelin kartaa reer Awdal kuwaas oo iyaguna doonaya inay ka sii mid ahaadaan Soomaaliya oo ay maamul goboleed noqdaan. haddii la helo Banaadir, Khaatumo iyo Awdal oo maamul ah, mid waliba waxa ay leedahay saameyn togan waxa ay u tari kartaa bulshooyinka deegaankaas. sidoo kale waxay xoojin kartaa midnimada dalka. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre si uu u damiyo qayladhaanta beeshiisa iyo diidmada shakhsiga ee loo qabo waa inuu qaataa tillaabo weyn oo abuuri karta hadalhayn togan loogana cafin karo tabashooyinka hoose ee qabaan dadka ku matalo saami qaybsiga 4.5. haddaba sidee u aragtaa adiga?